magaalada muqdisho intaan warkan ku guda jirnay waxa uu ka dhacay bar control oo laga ilaaliyo dhismaha aqalka baarlamaanka Soomaaliya cabdiqani sidee waxa uu dhacay dhageystayaasha u sharax burhandina madsan tahay intii warkan tuurira ka horeeyay ku jirnay ayuu qarax u dhacay sida dhageystayaashana ay la socdeen haatan jug culus baa yeerayso oo qarax labaad inuu yahay ayaa la filan karaa qaraxa dhacay waxa uu ahaa mid culus oo dhageystayaashuba intii si wanaagsan u socotay maqalka idaacadda ay ka maqli kareen kuwii magaalada goobaha ka agdhowna ay joogeen inta badan magaalada waa laga maqlay waxa uu ahaa qarax loo adeegsaday gaari inta uusan qarxin ka hor ayayna ciidamada amniga ama militariga ilaaliya ama kule xarunta barta control sayidka kule waxa ay ku rideen rasaas gaariga waliba rasaastaas oo daqiiqado ay socotay rasaasta laba dhinac waa la sheegay inuu gaarigu ahaa mid la soo ciirsanayay in gaarigu uu ku soo socday jagboyntiga madaxtooyada ee ku yaala sayidka baarlamaankana ka agdhow balse ciidamadu ay ku amreen inuu istaag markuu istaag diidayna ay rasaasta la dhaceen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo aan la xiriiray waxay xaqiijiyeen xaaladdu ay tahay mid wanaagsan golaha shacabka meel aad ugu dhow uu qaraxu ka dhacay barta control ee sayidkan uu ka dhacay isla markaana haatan ay xildhibaanada iyagoo salaadii duhur qaarkood galaya qarax uu dhacay waxaan noo sheegay marka qaraxa dhacay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo wariyaashuba ay ka soo baxayeen kulankii baarlamaanka oo gabagaba ah banaanka ay soo socdeen arintaas ma noo xaqiijin kartaa way jirtaa in xubno badan oo ka tirsan xildhibaanada iyo sidoo kale wariyaashaba ay dibadda uga soo baxeen xarunta golaha shacabka ma xaqiijin karno in kulanka uu dhamaaday iyo inay ahayd waqti salaada ay kulanka hakad loo geliyay marka xildhibaanada iyo sidoo kale wariyaashada aan la hadalnay waxay sheegayaan inaysan toos warbaahintu la hadli karin balse qayb kale oo xarunta golaha shacabka kamid ama qaybta dambe loo kaxeeyay halkaas ay uga baxaan ilaa hadda khasaaruhu ma cadda dhimasho iyo dhaawac inay jiraan wala soo sheegaya ay sidoo kale muddo dhaceysay midka labaadna dhageystayaashu way ogaan doonaan waxa weeye waa qarax kala dhacay aad u mahadsan yahay wariyahana cabdiqani cabdullaahi ibraahim ayuu ahaa waxaa idiin soo gudbin doonaa hadba wixii ku soo kordha qaraxyada ka dhacay goordhow magaalada muqdisho gaar ahaana meelaan ka fogeyn isgoyska sayidka oo magaalada muqdisho dabcan ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay madaxtooyada ka ilaaliyaan wararka naga soo gaaraha magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in laba qarax oo xooggan ay ka dhaceen magaalada muqdisho qarax koowaad ayaa waxa uu ka dhacay agaarka xarunta baarlamaanka ee Soomaaliya xilli uu maanta kulan halkaasi ay ku lahayeen golaha shacabka xilliga uu qaraxa dhacay waxaa soo xirmay kulanka golaha shacabka ee Soomaaliya waxaana ay xildhibaanada isku diyaarinayeen in ay ka baxaan golaha ciidamada ku sugan isgoyska sayidka ayaa cabbaar rasaas ku riday gaarigii qaraxa waday inkasta uu markii dambe qarxay gaadiidka gurmadka degdega ayaa ku xoomay goobta iyadoo ilaa hadda aan la shaacinin khasaaraha ka dhashay weerarada maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxa labaad ayaa sidoo kale waxa uu ka dhacay kontaroolka jidka garoonka aadan cadde ee u dhow isgoyska number 4 sida dad goobjoogayaal ah ay noo xaqiijeen qaraxa ka dhacay kontaroolkaasi ayaa imaaday kadib markii baabuur nooha ah oo lagu soo xiro waxyaabaha qarxa uu damcay inuu u gudbo halkaasi sida wararka ay sheegayaan ninka waday gaariga ayaa ka soo degay waxa uuna ciidamada u sheegay in uu doonayo garoonka balse inta wada hadalka socda ayaa waxa jug qarax loo maleynayay in batriga tahay laga maqlay gaarigiisa taasoo keentay in ciidamada dawladda rasaas la dhacaan gaariga ayaa markii dambe qarxay waxaana qaraxaasi laga maqlay guud ahaan magaalada muqdisho khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxyada ka dhacay magaalada muqdisho ilaa haddana lama hayo tiro rasmi ah inta qof ay ku dhimatay iyo dhaawaca wixii ku soo kordho wararkaasi ku aadan qaraxyada magaalada ka dhacay iyo